Waqooyi bari Soomaaliya waxaa dhaca maamul kala qaybiya Soomaaliyada Muqdisho iyo Somaliland baxsadka ka ah juqraafi ahaan. Meesha uu dhaco maamulkan ayaa sabab ugu noqotay colaado soo noqnoqday iyo hoosgeynta maamulada ay dariska yihiin saddexda gobol ee Sool, Sanaag iyo Cayn oo muddo baadi goob ugu jiray maamul ka saara marxaladii martigelinta dagaaladii Somaliland iyo Puntland ayaa ugu dambeyn u eg kuwa helay maamul magaciisu ka weyn yahay oo Khaatumo loogu wanqalay. Deegaanada maamulka Khaatumo oo ah kuwa taariikh fac weyn ku leh bogagga ilbaxnimooyinka Soomaalida ayna ugu caansaneyd Daraawiish ayaa iminka dhexda uga jira Soomaaliyada magacu amaanada ku yahay ee Muqdisho. Somaliland diidana inay Muqdisho wax la wadaagto iyo dhulka Soomaaliyeed ee xabashidu gumaysato waa ogaadeeniyay inkasta oo taariikh iyo kheyraad bay hodan ku tahay Khaatumo haddana juqraafi ahaan meesha ay dhacdaa uma dhimrin tagtadeeda iyo timaadadeedaba. Maamulka Khaatumo ayaa ku fadhiya badduleedan 97,100 square kilometers iyadoo ay ku nool yihiin dad gaaraya 700,000 ilaa 800,000. Deegaanka ayaa hodan ku ah kheyraadka shidaalka, macdanaha ay ugu horeeya dahabka. Sidoo kale deegaanka ayaa alla ku manaystay dabiiciga buuraha iyo biyaha buluugan.